intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka haatanna isaga oo fidsan. xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa qarax lagula beegsaday degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho iyadoo qaraxaasi ay dad ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen sida uu nagu soo waramayo wariyayga Cali Sheekh Maxamuud Cali Yar oo warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. qaraxan oo si rasmi ah loo ogeyn waxba uu ka dhashay ayaa gaaray watan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo kamid ah shaqadan Sheekh Madeer lagula beegsaday degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaana qaraxa oo gaaray ka halay qaybta hore gaariguna halkaas ku basbeelay ay ka soo baxayaan warar iskhilaafsan qasaaraha rasmiga ee ka dhashay wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dhimashadu ay gaarayso in ka badan 4 ruux sidoo kale tan 7 ruux dad ka badan ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdullaahi Ibraahim Saal Gardhuub oo kamid ah dadkii goobta soo gaaray saxaafadana kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in aan la cadeyn karin waxyaabaha qaraxaasi dhaliyay isagoona tilmaamay in 7 ruux ay ku dhaawacmeen waxa dhacay qarax dhacay wuxuu ku dhacay baabuur uu lahaa Sheekh Aadan Madeer oo nabarkiisu yahay 8 AB baabuurkaasi waa kala garanahay inuu u yimid qaraxa sababtu waxay tahay laami bartankiisu taagan yahay ma aha meel god laga qoday qaraxa dhacayna gaarigu inuu wataan anagu u badinayna haddii uusan gaarigu wadano hore loogu farsamaynin waxa weeye waa bacda dhigay baryahanna bacdaasa jirta bac inta la dhigo qofku markuu ku soo dhawaado lagu qarxiyana waa jirtaa taliyaha saldhigga booliska degmada Xamarweyne Colonel Maxamed Daahir oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in baaris ku hayaan waxyaabaha sababay qaraxa sababna intaas ku daray in tuunsan yihiin qaraxu ahaa mid gaariga hore loogu soo xiray sida arkaysaanba waxa meeshan ka dhacay baabuur baa ku gubtay waxaana haleelay qaraxaas ma ahayn qarax meesha hadda la dhigay mana ahayn qarax lagu soo tuuray laakiin waxaan isleenahay waa qarax kale oo si kale qolo markii wadayaal ay ku qarxiyeen masiibadii waxa ay rabeen ilaahay ma suurta gelin oo dadkii saarnaa oo mas'uuliyiinta oo ka badbaadeen dad shacab iyo dad meesha jooga oo ku dhaawacmay insha Allah taala barnaamijkaas iyo dabagalkiisana dib baan ka soo sheegi doonaa haddii Allah idmo qaraxan wuxuu qayb ka noqonayaa qaraxyada muujinaya in ammaanka magaalada Muqdisho uu faraha ka lumay ee magaalada Muqdisho ka dhacaya waxaana horay sidoo kale qarax lagula eegtay degmada Xamarweyne laguna qaarajay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ibraahim Garweyne kaasi hore u soo noqday wasiirka bini'aadanimada dawladda ku meel gaarka ahayd Cali Sheekh Maxamuud Cali Yar TV-ga Kalsan magaalada Muqdisho.